Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa shir gudoomiyay shirka guddi hoosaadka Golaha Wasiirada ee Tiirarka Cadaaladda iyo Garsoorka madaxa bannaan oo maanta looga hadlay dardargelinta howlaha horumarinta leh ee hay'adaha cadaaladda oo dubdhaxaad u ah helitaanka garsoor madax bannaan oo soo celin kara kalsoonida bulshada. Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa tilmaamay in xukuumadda ay ka go'an tahay dib u yeegleelidda garsoor madax bannaan oo xaqiijinaya wadajirka bulshada Soomaaliyeed maadaama cadaalad daradu ay ka mid tahay sababihiina dhaxal siiyay qaran burburka. dalkan waxa uu dumay cadaalad darro iyo garsoor xumo waxyaabo fara badan oo iskaashada u dumay ha yeeshee qayb weyn ayay ka ahayd meel walba oo dhibaato ka jirtana inta faraha badan cadaalad darraa ka jirta keenta sababta dawladaha especially marka haddii aan rabno inaan toosnana oo wax waliba inoo hagaagana waa inaynu cadaaladda iyo garsoorka oo dabcan kala weyn oo arrimaha dee cadaaladdu aad bay u weyn iyo in dadka loo garsooro iyadana muhiim waaye labadaas arrimoodba in xal laga gaaro waaye haddaan rabno inaan maaragtay dib u soo noolaan marka cadaaladdu sidaas ayaan gaar uga soo saarnay iyo garsoorka sidaasaan amniga uga soo dhex saarnay saasay tiir gaar ah ayay u noqotay halkan marka waxaa fadhiyay hay-adihii ay labadaasi taataabanayeen iyo hay-addii liid garaynaysay arrintaas xukuumadda u qaabilsanayd oo ah wasaaradda cadaaladda waa la review gareeyaa waa laga doodaa wixii lagu dari karaa lagu daraa wax marka bislaaday oo laba heer soo maray oo looga soo dooday haddii uu sharci ahaa xeer ahaa iyo haddii uu idea kale ahaa intaba ayaa golaha wasiirada marxaladda saddexaad loo gudbiyaa marka waa shaqo isdaba taalla oo kulligeed iskaabaysa oo qeybta hore ee farsamo ka soo bilaabata soo marta qeybtaas dhexe ee political level iyo ugu dambaysta oo ah golaweynihii wasiirada oo dee siyaasiyiin ah marka haddii in loo codeeyo ay mudato haddii in la mariyo ay u baahan tahay halkaasaa la mariyaa marka intaa waxaan rabay inaan aan ka siiyo dulmar guud oo ku saabsan tiirkan tiirarka cadaaladda iyo garsoorka madaxa bannaan oo ka mid ah 6 tiir ee barnaamijka xukuumadda dan qaran ayaa halbeegiisa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dib u eegidda shuruucda iyo siyaasadda muhiimka ah ee helitaanka garsoor hufan oo madax bannaan dhamaystirka heshiiska siyaasadeed ee hanaanka garsoorka hay-adaha cadaaladda dejinta adeegyada garsoorka iyo dardargelinta xalinta khilaafaadka ku salaysan xeerka Soomaaliga iyo hirgelinta maamul wanaag ku dhisan isla xisaabtan. Cabdinaasir Socdaal, Bilan Radio.